mooryaan ma nihin baadhata ma nihin gaadhigan aniga ayaa soo qabtay rarkiisi waa saaran yahay kiish lagama dejin shufto ma nihin annaga xoolahay ay qaateen magaalo dhan oo la bilaqaystay gaadiidkii shacab u tirin maayo qabiilka habaryoonisa ka ahaado beebeeji muuse ismaaciil ha ahaado jibriil turu ha ahaado ciidankii meesha marayay ciidanka caaruu badnaa oo sacad yoonis buurta lagu soo guray waxaa weeyaan beebeeji hantidii uu kaxaystay saacaddan wuxuu ku hayaa laasa surad maydh buuqaad kaga soo qaadaa gaari kaloo ka buura waxa wata niman muuse ismaaciil ergaabu gobolku soo galaa adiga gawaadhi baa laga qabsaday laydinka qabsaday markii dagaalka gaari waa la gubay sida warqadda ku xusan xaqdarrada iyo dulmiga lagu xukumay sida ku xusan gawaadhidii la gubay ee dabka la saaray ciidanka maamulku gubeen ha la soo caddeeyo warqadda waa laga reebay ha la soo caddaysto waba nin gurigu ugu yimi oo hantidiisii gubay ole waan gubay oo anaa dabka saaray ha la soo caddeeyo baa warqadda lagu soo qoray waxaa kaloo jirta $22,000 oo dollar $22,907 oo warqad ku soo sifneeyey iyo labada gaari aniga shakhsi ahaan hanti fara badan oo aan dhaar uga tegey oo qalabkii hoose ah oo aan dhaar uga tegey baa jirta in aanan caddayn karin tiradeedu inta leegto aan ka tegey magaala ahayd meeshu dhisan waxaa sababtan keenay baan sheegayaa beebeeje waa nin maamulka somalilan u shaqeeya waa marayniska badda somalilan waa taliya ku-xigeenka marayniska badda somalilan laasa surad buu ka tirsan yahay maamul kasta oo snm ka yimaadaa wuxuuse soo taagaa laasa surad bara saabka gobolka sheeganaya gobolka shalay doraato wuxuu joogay laasa surad waa taliska lagu casumeeyey taliskii hantida iyadu taalawiyey beebeeji wax ka qaban lahaayeen maamulkaasina shirka isagaa faraa la galay cid kalena ku eedaynayn beela daaroodaan lagu canjarafaynayn maamul puntland baan faraa la gelin wixii macnaha iyadoo dulmiya wixii lala hoos tegey maamulka wixii lala hoos tegey waxba waa ka qaban waaye wuxuu noqday shaadh reer shaadh gashan beebeeji hantidana annagu boob doon ma nihin xaqii aan lahaa hantida tan hadda maxaad marka ku samaynaysaa maxaa go-aan kaaga gaadhay markaad rabtay hanti 40,000 iyo dheeraaba aniga ayaa iga maqan hantideeduna xoolo maamul bay gacanta ugu jirtaa shacab shibil xitaa inteeda badan waa ka madax bannaayeen maamul inteeda badani maamul bay gacanta ugu jirtaa waa nimankii meesha gubay waxna lagama weydiin mas-uuliyadda meesha annagaas iskale shidan guddoomiyihii shidan baan ahay ciddii doonto ha hadasho waxaa weeyaan waxna lagama weydiin shidan wixii ka dhacayna lama weydiin xisaabaha la soo qortay sharci darrada iyo islaamnimo xumada ka jirta meesha iyo maamul xumada ka jirta waxaa xaqiiqu ah anigu ninkii xabadda ugu horreysay bilaabatay ciddii la soo weeraro hantideeda iyo gurigeeda loogu soo galay baan ahaa oo hantidiisa maqraanti baa ka tihiin guryaha iyo foornooyinka iyo gaadiidka laysku dulgubay marag baa ka tihiin gurigaasaana loogu soo galay qalcadda yar aanu gubnay marka dambe ciddii degganayd odayaal baa joogay cariishna waxaa u yaallay saad hartiya isaaq iyo maamulkuna waa ka dhergsanaayeen waxa meesha yaallay warqadda waxaa ku xusan 12 qof oo ganacsadayaal oo dumar leh ma joogin kutub jaamac qur-aanaan iskaga bixiyaa xabaddu markay bilaabatay oo dhimashada iyo dhaawac u dhacay inaanay joogin oo degganayn oo ka ganacsanayn aniga kutub jaamac qur-aanaan iskaga bixiyaa dadkaa lacagta soo qortay waa dagaalkii labaad miyaa baad sheegaysaa bay leeyihiin dagaalku markuu qarxay waxaa deganaa odayaal baa joogay meesha warqaddan xukunka meesha ka soo baxdayna waxaa ka muuqata 10 qof oo ganacsado ah si loogu ekaysiiyo magaalo la deganaa meesha oo ka soconayay ganacsi iyo nolol population deganaa waa siyaasad snm gaar u ah waxaa weeyaan dumarkaas aan deganayn raggaa lacagta loo soo qoray baan deganayn oday baan garanayaa haddaan dembiga iska dhowro sigaari wax ku gadgadi jiray alaabii haystay faray la dhaho oo urur suga ah odagaasina fidmaddu markay soo xoogaysatay oo qarax faraha kula jirtay wuu guuray isagay reerkiisa islaantiisaa joogtay ciyaalu dhalay waaba guuray maqanu ka ahaa waa garta hadda adiga alxaasil maanta hantida dadka adaa gacanta ku haya saacadana taagan yahay hantida tanboobtag meehi haye maxaa go-aan oo ka gaadhaysa haddii waxaagii awooday ama lagu soo jawaabi waayo somalilan ka soo jawaabi weyne hantidan haddaan kaala hadlo anagu nin mooryaano dadka booba meehi waxaa weeyaan hantidan xaqaygii oo maamul iyo qabaa'ilba inta laysu tegey duudsi ku jira khasaare kalaa jira dhimashaa jirta ku ekaan mayso horta intan oo keliya ku ekaan mayso intan ku ekaan mayso khasaaraha wixii yaalla ay tabayaan snm ay tabayso oo dhani jawaabteedu way dhacaysaa
xal haddaan laga helin arrintaa gaadhigan iyo hantida saaranna boob uma aanan soo kaxaysan hantidayda waan soo kaxaysanay haddii hantidii xal baan ku raadinaynaa haddaan boob tagnahay isma saarnaadeen ma rarnaadeen halkaa kuma haynin gacantaan weli ku haynaa xal haddii laga waayo jawaab laga waayo cad waxa weeyaan taayadii waa la bililaqaystay waa la wata waa la cunaya waa lagu ganacsanayaa maamulkuna waa ogyahay indhuus ka soo ridaya sidii noocii un bay baxaysaa noocii taayada loo isticmaalay bay u baxaysaa